السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسر وهذا برنامج كان واحد هذا البنك سوق قدنا قيبة كلا دونا أصلنا هاي وحيابا ونا وحبي أطريان يعني داود يا سومالي هجوجان هل كان هجوجان قضب يعني وحكوا وحكوا كرديني وأتكفى هذه السنة وهذه صحولنا هو برنامج حق سوق قدنا قضب هذا جعلان دونتان وجهل دونتان كقيب قال ياش هل كان فريدة مركز ركتان يعني أدوسي جعلان دونتان يعني وحانويان dhibaatooyinka caruurta waalidiinta qurbaha nolosha maxaa naga haysta haddaynu Soomaali nahay qodobkaas doonay caawinaan ku falanqeyno waxa halka yani ila fadhiya dhankan naga xigta Leila Cabdi degan ay magaalada London ee kamid ah hooyooyinka aad u daneeya xiiseeya yani arrimaha dhibaatooyinka Soomaalida xagga yani qoyska caruurta guriga nolosha had walbana arrimaha ka hadasha meelo badan ka hadasha Leila Cabdi waxa gudbaya xagga Ridwaan Maxamed Sambal ayaa xagga fadhida runtii aydan abwaanad ah laga yaabo inaad wada garanaysaan kaalina ka qaadata yani qaybgalka yani horumarinta wacyigelinta xakameynta wax qabadka dhibaatooyinka caruurta Soomaaliyeed meeshaan dalkan Ingiriiska daawadan waxaan ka warqabnaa 25 sano u dambeeyay dhibaatooyinkii waa soo wada korayaan waxaan islahayn maalintii sanadii ugu horeeyay kaliya ku kaan doonaan oo jaaliyad inay isqabsato oo jaaliyad wada gacmaha isqabsadaan ay guddi wada sameystaan ishabeeyaan isqurxiyaan ay yani dad wacyi aqoon in nolosha la raadiyo qoysaska la raadiyo dad walba la raadiyo dhibaatooyinka la xaliyo heerkaas sugayne laakiin waxaad moodaa wali inay sii soconayso sii fido caawa munaasabadaas arrimaha baan ka hadli doonaa waxaana martin inoogu ah labada Leila iyo Ishaaq iyo Ridwaan Leila ku soo dhawaad barnaamijka yaarka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو ugu horeysa aad baan ku salaamayaa adigoo ah Awees oo nagu soo martay qaaday SMTV aad baan kaaga mahad celinayaa sida aad noogu soo dhaweysay waa ka filay Leila Cabdi runtii waa halgama ayadii Ridwaan waxa uu ka rawaday hooyooyinka u halgama maanta guriyaha inay istaan adkeeyaan ummadda Soomaaliyeed Ridwaan Maxamed Sambal ku soo dhawaadeen SMTV London جزاكم الله خير in ka hadda koorad 12 maqaan dhowr sano ka hor bay soo fadhiisatay barnaamij culus ka sameysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baad u mahadsantahay waan salaamayaa dhammaan shaqaalaha TV-ga iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan dhownahay waad mahadsantahay waa tahay ugu horreyntii marka waxaan jeclaan lahaa barnaamijkeena inaan kala qaadno maxaa dhacayo maxaa ka socda qurbaha USA Scandinavian Australia Canada qoysaska Soomaaliyeed ee qurba joogta ah maxaa ka haysta dhibaatooyin waaweyn baa taagan ee jira ee aad moodo gudaha iyo dibadda isku wada xirnay laakiin waxaanu diiradda saaraynaa caawa aan diiradda saari doonaa yani sidaynu qoyskan Soomaaliga ah ee la soo raray ee caruurtooda wata hooyo aabbaha waliba qurba imaan halkan la soo dejiyay ee soo degay yani caruurtii oo yaryar oo 4 jir 3 jir ama halkaban ay ku dhasheen ku koray maxaa burburiye maxaa keenay caruurta inay dhibaatadaas yani isaas arrimaha inay la kulmaan ku soo dhaw Leila Awees waad mahadsantahay walaal horta waa runta waxaynu ka nimi wadan nook maxay yihiin sheeg wadankeeni Soomaaliya hadda burbur 27 sano ku dhawaad burbursan markii loo fiiriyo oo wadankii iyo halkan waxa waaye dhaqankiiba kala duwan afkiiba kala duwan maxay yihiin anagiyo yani dad badan ka familkii uu ka kooban yahay yani famil yani baaxadiisa ay weyn tahay oo aysan ahayn hooyo iyo aabbo iyo laba cunug ay tahay ka badan karto xataa ay ka badan karto xitaa marka waxaana moodaa in ay aynu maxay ahayd wadankeeni aynu ku noolayno yani ilmihii ay ku barbaari jireen bay'adaas ay ka duwan tahay halkan oo hooshii oo dhan ay noqotay hooyadii iyo aabbihii kaliya in ay maxay ahayd ay hooshii oo dhan
ayaga keliya ku noqotay inay ka bixi laayihiin sida aan hadda arkayno hadday iskuul noqoto hadday noqoto bulshada dhexdeedii waxaanu ka muuqanaa maanta dadka aanu la noolnahay aad iyo aad laakiin runtii markaad fiirisid dadka aan la noolnahay meel kullu dhibaatada waa wada dadka waa wada taabatay oo waxaana keenayaan casriga cusub nolosha cusub technology iyo horumarka bulshadan gudooda 100 sano ka hor iyo 50 sano ka hor saamayn xogaa dhalintu way degneed 15 jirka 16 jirka laga sheegay hadda waa la wada qaylinaya oo Pakistantii iyo Hindidii iyo Bangladeshkii iyo Carabtii iyo Afrikaankii iyo saana loo wada qaylinay marka cudur generation inta dhan wada hayso laakiin Soomaalida ugu darnaa meel fiican bad ka taabataan jeclaaday qoyskii meeshan la keenabo maba u war hayaanba meeshan ilmi iskool kuwan ogeynba subaxdii loo soo qaraaco ilmihiin iskoolka maxaa u keeni weydeen waxay u malay waxay sugan carruurta kale wadin iska labisaan iskoolka aadaan carruurta iskoolka in la geeyo laga soo celiyo homework la shaqeeyo lala sheekaysta carruurta aqoon uma lahayn oo hadda waxbaad ka taabata runta leeli ka war adiga Ridwan waa runtii walaalay sheegtay horta dad waxaynu nahay inagu ku cusub wadankan laakiin hadda mudaynu joognaa waxoogay waa dhowr iyo 20 sano 30 sano waa waqti badan still haddana waqtigii waxaad moodaa intii aynu joognay inayna muuqan oo aan kulay aragtidayda gaaban saas leeyahay intii la joogay iyo qofka maanta yimaada iyo qofkii joogay 20 sano kii laba sano joogay iyo kii 30 joogay iyo kii 3 sano joogay ma muuqato wax u dhaxeeyo oo isleedahay waa isku mid baad leedahay kana ka soo horeeyo waxa garanaya kana ka soo horeeyo oo waxa gaaray giraantu waaba halkaaga un joog wixii la oran jiray jubjub meeshaada joog carruurta isku oran jiray carruurta ayaan ka maqan jiray waxaas waa jubjub meeshaada joog marka maxaa keenaya dadkeenu inay hal mar meel uun joogaan haddaynu hadda ka waran tusaale waxaynu joogaa 2017 2025 ka haddaynu halkan walaalkii aynu joogno improvement badan ma una muuqanin sababtu waxay tahay angle baynu ku jirnaa koonaynu taaganahay halkan waynu nimid horta maasha Allah dad waxaynu nahay runtii karti badan xagga xoogga iyo firfircoonida iyo wax qabsadka dhinac waynu ka fiicannahay dhinacna runtii wadankeenu ku noolayn inuu baasaboorkiisa qaadanay inuu deganahay inuu guryaheena carruurtii ku dhalatay xataa ayay lagu sii noqon rababa ama qaarba noqdeen wax laga garanayaa waa laga soo xidhanyaa maanta ma garan karayo qofka jooga Hargeysa ama Xamar jooga iyo qofka London joogay waxaan ku kala garto oo difference ma arko mana garanayo in sidaa un loo xidhnaado oo carruurta iskuulka gee yani xafiisyada dawladda uun housingkii ballantii ka samayso GP-gii meesha dhakhtarkii tag migrationka mar u tag lawyer mar u tag intaa mooyee wixii kale loo baahnaa qofka bini'aadamka inuu ku noolaado inaan tartarno inaynu dhex galno oo la yiraahdo sidee baan ugu noolaan karaa halkan caqabada iga hor iman kartaa maxay tahay waxa la isma weydiinin dadkiina ma aynan there something waxbaa xidhan miyaa loo saarinaa markaad eegto qoyskan hadda waxaad sheegtay meeshii waa ku xiran yarkay ku qufuriyay waa meel xidhan waa maxay waxa loo saarinay marka yani intaan la gaarin aan oran hooyada dambile aabaha dambi intaan la gaarin daraasaad bayna caaw sameeynayna si waalidiinta inooga faa'iideystaan yaa labadiina laba hooyatina aabaan ha qudhaydo waana ku wada jirnaa arrinta inkastoo aan ogahay yani leelay ama Ridwaanay in dadka qaarkood markay hadlayaan dadku waxay dambiile ka dhigayaan hooyada aabahii yani ma saaray ilay aabaha dambiga leh hooyada dambiga leh cunugii baa suuq galay gangster buu noqday gabartii baa shoplifting dukaanka bay wax ka xadaa oo carruurta kama warhayaan wax ka weyn baa jira caaw waxaan isku daynaa marka daawadayaal inaan fatashno bal waxa aan heli karna soo saarno haddii aad doonaysaan barnaamijku ay ka qayb qaadataan fadlan halka noo kaalida inkoo socda ama email kasta u wareeganaya awasuge@hotmail.com leeso adeegsada ama inta imaada umadiina wax u faa'iideeya waa maxay marka saan u dhisnaa marka saan u soo saarnaa wixii taga tigsi male raad arooriyo dib looma raaco يعني إن حد أمد الصوماليات
meel kasta ay joogto qurba joogto jiilalka soo koraya waa dadka mustaqbalka berito hogaamin lahay weeyaan waa takhtarkii waa takhtaradii waa wasiirkii waa generaalkii kuwii baan aasaynaa oon daawanaynaa sidee baan qoysaska soomaalida u kaalmaynaa si ay u xakameeyaan arrimaha sababaya caruurtoodu inay suuqa galaan leylay بسم الله هرت إلهي معبود كان كبرين وقرشين وهاجين نمبر 1 dadku dhamaan inakuna waynu ku jiray waynu nolosha aragnaa khatarteeda iyo faa'iidadeeda very good nolosha waxay u baahan tahay shakhsi kasta iyo qoys kasta looga baahan yahay in laga aad looga fikiro oo aad loogu fiirsado wixii qoyska wixii khatar ku ah iyo wixii faa'iido ku ah tusaale luqadda Englishka oo kale caruurta markay iskuulka la geeyo all day ku maqnaadaan in yar bay kula joogayaan intaan waxa laga yaabaa aabiinu shaqo ku maqan yahay hooyadina cunto ka karinayso ay ma garanaysaa caruurta TV yara daawadaan ay hooyo casho maxaan ku siiyaa saddex kalmadood oo isweydaarsadaan ma fiican tahay hooyo boorsada baaga halka dhig cunto maxaan ku keenaa qadama qadaynaysa waa labada kalmadood ma aragtaa kadibna orado sax waqtiga baa dhacay ama homework ama tuition loo cararo marka waxa aad u yaraaday xiriirkii waalidka iyo caruurta marka waa la kala koray caruurtiina qolay noqotay waalidkiina waa qolo hadhowna luqadii la isku ma fahmin waa guriga wala wada degan yahay ha luqadii la isku ma fahmin dhaqankiina la isku ma fahmin dabeecadiina la isku ma fahmin wala wada nooliyay hadii dhaqankii iyo fikirkii iyo hadalkii la isku fahmi waayo xataa diintu naftirkeedu khalkhal baa iman karaan marka kulli hawluhu way farabadan inkii wuxuu doonuu sameeynaya marka leyla sawarta adiga arrinta waa sidii walaashay ay sheegtay laakiin waxaan ku darsan lahaa ciyaalka iskoolka tagaya waxaa la soo siiyaa book diary la yiraahdo xusuus qor af Soomaaliga ilmaha diarygaas waxa ku fasaxayaa ilmaha iskuulka iyo waaridku inay maxay macallimiinta iyo waaridku inay xiriir ku wada yeeshaan ilmahaagi baa wada oo maalin kasta baa boorsada ugu jira haddii aadan ilmihii aadan markaa aadan diarygaas intaad akhriso war maanta maxaa lagu soo yiri waa meelaha ugu muhiimsan oo ay ilmuhu iyo macallimiinta iyo waaridku ay ku wada xiriiri karaan buugaas oo ay ku kala wadaagi karaan in ay cunugu ay la socdaan halba xeerku meerka cunugu uu taagan yahay annagu ma hayno waqtigaas yaa ku diiday waxaa noo diiday waxa weeyaan duruufaas maadaama duruufti waxaa ilmo yaryara haysataa kuwii waaweynaa way joogaan soo ma fahmin hooyadii keligeed bay maanta noqotay yaanan been loo isu sheegin waa hooyada caruurta badan leh ka soo qaad waa hooyo kasta oo keligeed ah keligeed hadduu ninka la joogo iyo hadduusan la joogin waa isku mid annaga ma lihin aabbaa xun hooya xun ma lihin laakiin waa inaan runta aanu ka hadalno oo niraahno ilmihii sidee hoosteena uga baxeen marka haddaan dhahno wadankan aan ku noolnahay ilmaha labada cunugoon haddaayba hore usoo sheegay hooyadu way ku filnaan kartaa laakiin familkiyo ballaaran iyo waxaa isu yimid iyo dhaqankeenii iyo dhaqanka wadankan ayaa iskarash gareeyay waa isku dhaceen soo ma fahmin marka baariya luuqana way jirtaa oo aan dud luqo afki mushkila afki inaana annaga ilmihii aan dhalnay iyo annagaba aanan soo qooninba sugala afka ka dhaxgal rirwaan ka waran afka markaad leedahay waxaan soo xasuustay hadda yani aniga aabaan ahay aniga markii 6 sano iyo 7 sano markay jireen barnaamijkan ka sameeyay universal soo fadhiya af Soomaaliga waxaan tusinayay waalidiinta Soomaaliyeed in yani hadda nimo waaweyn waa hadda Soomaaliga way qoran ku qari waalidiinta Soomaaliyeed waxaan tusinayay in caruurta la bari karo afka waxaan ku weydiinayaa marka ridwaanay marka canuga 7 sano uu jiro 6 sano 7 sano 8 sano 9 sano 10 sanadood controlkiisi baad leedahay ma bentay ba
guriga controls baa leedahay صح 15 maalintuu gaaro iyo maalintuu 16 sano gaaro kulli ila waa anaga baan hadigan hooyo barnaamijka anaga iska wada 3 ku wada jirna inkastoo wariyaan ahay ila waa wada doodayna Soomaali laakiin maalintuu 15 gaaro waa ku dhamaatay 16 maalintuu gaaro waa ku dhamaatay 17 high school bahaduu soo gaaro waa ku dhamaatay hooyo shaqo waxa la iska rabaa marka hadda war maxaa ma aqoon baan loo lahayn waagaas haddaan u sheegayn haddii u lahayn cunuga 7 jirka 6 jirka intuu ku hogaansamayo oo ku maqlayo ku dhageysanayo maad miiska inaad geysid ka gaarsiisid oo ku fikirtid oo tiraahad cunugan hadhowdi mar waxa la gaari doonaa oo soo ku maqli doonin oo soo gali doono iskoolka ha u saarin dambi guriga gudihiisa ilaa guriga degantahay wuxuu u dhigmaa Soomaaliya صح your house meeshaad ku nooshahay Soomaaliya u dhigmaa oo ah gurigaada Soomaaliya markuu u dhigana afkii iyo luqadii iyo language-kii waa in laga helaa arinta ka war Leila ku soo noqonayna adiga waa hagaag waad maasantay Leila ma sha Allah waxyaabo badan baad runtii taabateen warta waxa weeye markii horeba qoysku waa bad sax horta kelmadda la ogaado qoysku waa bad waa wax aad u ballaaran Soomaalidu qoysku hoos ma gelin qoyska lama dhiganin qoyska war looma hayo qoys anigu 2 goor baan dhigtay iminkana macallimad qoys baan doonaynaa noqdo waan ka qalin jabiyay haye sababta uu kaliftana waxay tahay waxaan arkay gaabka iyo inta la isu jiro badnideeda miisaaniyada qoysku siday u ballaaran tahay oo u badan tahay ma sha Allah iyo siday wax soo dhaafayaan markaan arkay waxaan isiri runtii adigoo barto oo dhaqaaqay la qaatay mar baan bartay labaan bartay saddexaad kan imika waan ka qalin jabiyay horumarinta qoyska leeyahay horumarinta qoyska barnaamijkan ka sameeynay marka walaal waxa weeyaan horta qoyskano miisaaniyada inta leeg bad ku fadhidaa qoysku wuxuu u baahan yahay istiraatiiji iyo meel la marmaro iyo in wax la qoro iyo in wax la nidaamiyo iyo taladii iyo caruurtii laakiin qoyskana ahaa markuu halkan joogay inay wadankeeni joogo guuraha may wadan qoyskii qurbaha ayaa u eg inuu joogo istil wadankii marka wax badan baa isdhaafay qof walba wuxuu garanayaa markuu soo jaro 20 sano 15 sano yiraahdo show sidan basameeyay noloshii si kale ayaan qaado bravo marka waxay tahay dadka way aragga ee hooyooyinkii aabayaasha inay inta dambe wacyi geliyaan soo urursado la isu sheego xaqiiqada iyo qoyska hawsha ku jirta inaan la yareysan kareynin luqadu waa waxa koobaad waa furaha waa kiigaagu hadduu kaa lumana weligaa waad lunsanaanaysaa cilada u weyna waxay ka jirtaa waxaynaan horumar ku samaynin ama in yarun la taabtay oo la rabay miisaaniyad weyn in la geliyo luqada iyo hidiya dhaqanka yaa sameynaya waa su'aal qoysaska u sameynaya waa su'aal da'weyn yaa sameynaya yaa sameynaya qoysaskan waxaanu ognahay dawladii waxay ka kooban tahay qoysas la isku daray adiga qoya barta qoyska mogta qoysaskaas la isku daray dawladda ka kooban tahay qoyskiiba dawladda qoyskiiba gurigiisa alqoys asaasu dawlo wax ajaab kale يعني مد اللي يابسين وحوي ور أمدان بقولي أفرتن كم با هالكان كنول ليلوي رضواني أي إنجليز كدكن ور وحر ساد نوعا أو قويسس كابت باديو أرمها حكمية ودلني يردا فكتو جانجس كان واو إمان دون هذا ساوث هول إيه هيس إسلايني كم دن تو كواجي سكول لاي نورت سكول دلي caruurtan wada fakatay oo haddana midaan la yaabay war markii wax la baabiyo wax la dilo ma hurdada ka kacnaa ka hor waaba lagama yaabo inuu qof ku yimaado tala maxaan sameeyaa qoyskiina u tago haday mar baad ii sheekanaysa waxaad tiri qoysas baan waxaan si advice talooyin baan siyaaba tiri oo la hooyooyin baa ururiya meel baa wax sameeya waa la hadlaa war waxaan yiraahdaa war saan sameeya war isu kaalaya say wax u jiraan marka ليلى نفتر كيدو waxay tahay qodheedu ma yareysato maadaama aan qoyska ku hormaro niri waan bartay qoyska saan soo sheegnayba walaalo wuxuu u baahan yahay dhinacyo badan laga dhiso sax I don't think so qoyska qurbaha ee Soomaaliyeed ee indhalaanta ku beermay I believe Allah wakiil wuxuu baahan maqasheen Allah wakiil wuxuu baahan mooyee iyo dhaqankeena inuu wadnay dad islaam aynu ahayn mooyee
dee wax kale oo odhan karaay runtii waayo jaar ma laha ehelkii uma dhowo waxba wax fara badan waxyaalo badan baa iska jira sharcigii baa inagu adkaaday inaku maynaan ahayn marka hore dad sharci adag iyo wax kusoo koray ma garanaysaa runtii waa laga gudbi karaa wax walba luqadda waa la baran karaa hidiyo dhaqanka waa la baran karaa diinta waa la horumarin karayaa safetyga caruurta waxaasoo dhan waynu samayn karnaa wax walba laakiin waxay ku xidhan tahay sidaynu u dhaqdhaqaaqno inuu tallaabo ugu qaadi lahayn weliba dhaqso ah ayay ku xidhan tahay arrintaas inay hirgasho dadkuna isu soo baxo absolutely ilaahay ما وين تي ولا شيء شيء runta okay waxa taas ka daran marka caruurta waxaan diirada saaraynaa gurigii ilaa hadda aniga guriga waa horteeda yaalo waxba idinka ma qarnayo waxaan u jeedaa hooyo wiilkeedii ka cabsanaysa 16 years oo jiro language kula hadasha male ka cabsanaysa way ka ma la hadli karto waxay doonaysaa in niyadii waxay karto waxay leedahay aniga way soo gaarsiisay wuxuu ku ciyaaraa balay gameka ayuu sidee saxabeennimo fadhiya telefishinkii keligii baa adeegsanaya screenkii mobilku 7 saxabeennimo sariirta kula jira gurigii male yani xeerar iyo kala dambeyn iyo hadal iyo kuwa dhamaaday male see laga yeelaa arrinta idinka ma la kulanteen saas oo kale labadiina hooyo waxyaabahaas oo kale ma yaad la kulanteen waa waxa jira horta ay waana wax loo baahan yahay in laga hadlo horta waa inaan horta annaga aan isu sheegnaa aan niraahnaa waaridka horta yaa guriga ka ah ma ilmaha waarida mise waaridkii baa waarid ah marka anigu cunugayga uu ku nool yahay gurigayga that's my roof hadduu ku nool yahay waa inuu aniga sharciga aan anigu ii degsan yahay gurigu waa inuu isticmaalo laakiin sharci adiga guriga markaa u dejistaa hooyo ahaan aad og tahay wiilka caruurtaada inay responsibility waajibaad ka saaran yihiin saacadday sariirta galayaan adeegsiga telefoonka waqtiga xadadan adeegsiga gameka waqtiga hooyada inay u bisashahay hadday u bisashahayna ay raadsato help qasab waa inaa yeelato haddana sharci uusan gurigaasi uusan ka jirin dee waxaa weeye qof kastaba daaqadu ka baxaya waa hadda looga baxay waxay hadda looga baxay oo aan ognahay oo aan arkayno ilmo yar oo 12 jir ah oo dharkii iskuulka sita inuu maanta dariiqyada taagan yahay ama weekend ha noqoto ama maalmaha kale caadiga ha noqoto waxaanu arkaynaa ilmo la igu yirabay waliba hadda iyagoo 12 jir ka sii yar la soo daayay in la soo daayay waana qalad sharciga waa qalad dalka sharciga waa qalad weynaa sharciga isagoo qalad ah waxa ogaataa horta adigu qof madooba inaad tahay sharciga kuma shaqeynayo waa in runta la isu sheego sharciga hadda qof madooba waa lagu leeyahay sharciga wuu jiraa laakiin haddana sharciga wuxuu sii taabanaya markuu qofku uu yahay qofkii wadanka u dhashay waxa ogaataa in adiga qof wadanka u dhashay aadan ahayn oo haddana qof madooba sii tahay muslim la tahay sharciga waa ilaalinaysaa laakiin markuu ilmihii communitygooda markuu adag yahay iyo markuusa communitygooda adkan isku mid maaha marka gurigaaga sharciga u yaalo ilmahaagu waa inuu follow gareeyo waa inuu raaco hooyada waana iskoolka ilmaha geysaa waana ka soo celisaa ilmaha waa inay og yihiin ishii lagu hayo sharci jiro guriga sharci waa inuu jiro kala dambeena cunuga 16 sheegaysaa ilaa uu 20 jiro hadduu guriga kula degan yahay waa inuu sharciga aad adigu u degsatay gurigaas waa inuu ku dhaqmo marka ku maqli waayaan ka waran 16 jir markuu gaaro waxaa dacwada aad hadday u socoto waxa weeyaan ridwaanna way ka warqabtaa 16 maalinta uu gaaro maba ku dhageysanaya arrinta ka waran ridwaan way jirtaa والله وانا نصيب دارو inaan maqlo hooyo baqayso ilmeeda ka baqayso ilmaaga duu sodan gaadho duu afartan gaadho horta hooyada inay baqdin gasho maaha iyo aabuhuba waxay ka horta wadankana runtii wadan cajiib ah oo inaan sharcigiisii baranin oo waxaynu aragnaa caruurta inay freedom haystaan ma haystaan haddii sharciga wadankan la ogaado siduu u shaqeeyo caruurteena waxyaalaha qaarkood mayna samayn lahayn mayna u malayn lahayn inay naga baxayaan oo kale ama inay dacweynayaan oo kale dadka horta baqdin min Allah ida ku jirta dadku inay baqdinta iska saaraan ilmahan iyaga dhalay haday immigration hor joogan haday police hor joogan haday MB joogan haday school joogan waalidku ilmahan isaga dhalay baqdin inuu waalidka meesha ka baxdo waa muhiim way jirtaa arrintan caruurtan ma garanaysaa firiid waxaan u malaynayaa waa sheekadii qoyskee badda haydo hooyadii iyo waalidkii aabihii intay malaha daaleen ay give up kelmadda give up way isdhiibeen
marka isdhiibidaana in laga soo badh noqdo qaarka soo socona ayna gaadhin inay give up ka horeysa ay ogaadaan iyaguna bal sidii looga soo badh qaban lahaa ama looga arrintan xalkeeda loo gaari lahaa in ololaheeda la qaadaya saan u qaadnaa ololaha arrinta xalka waa noo dambe weli falanqayntii baan ku jirnaa barnaamijkeena wuxuu kooban yahay daawadayaal caawo marti inay ugu yihiin Leyla Cabdi iyo Ridwaan Maxamed Sambal kaga hadlayna arrimo yani xogaa inta tabarteena ah kartideena qudhan waalidan aniga awowan ahay aniga hooyo waa ku wada jirnaa badoonta wada saaranahay haddana waxaan ahay dadka dhaqdhaqaaqo oo qayliya ee doonayo inay xaliyaan qoyska maaragtay dhibaatada ka taagan waxaan u soo galaynaa marka arrintan waynu u jeednaa xalinteedu waa heli doonaa insha allah xalkeedu waa yaa la quusan Robert Mugabe waa tagay Mugabe left gun waa tagay qof adduunka qof walba waa soconaya marka waarimayside waarimayside warakaara waa tahay heys iyo waqti meesha haddaa soo fadhiista waa jaraysa saacadda heys iyo saatol ayay ka shidanta maalmaha ka shidaan waxaan ka wadaa dhalinyaro la yiri gangsters xamar waa laga yaqaanaa ay hargeysa gangsters sooma magaca erayga waa la yaqaanaa macnihiisa erayga kelmadii runba gangster oo dhaaf iyo gangster oo dhaaf xamarna waa laga hargeysa waa laga yiraahdaa malowna waa laga yiraahdaa labada xaafad ee heys la yiraahdo London daawadayaal ku kala taal galbeedka London heys iyo Ishaga iyo Southall iyo North Hall meel la yiraahdo waxaa ka dhashay barambaro gangsters ah qorasho meel yiraahdo dhalinyaro Soomaaliyeed soo wada baxay ayaa islaayay arrinta war ma haysa aad macaawana keentay meeshaan iyada ugu weyn horta aniga Leyla ahaan gaar ahaan ilmahaasi waa ilmo yaryar kuwa waaweynna way ku jiraan kuwa yaryarna way ku jiraan xalay ugu dambeysay waxaa wiil lagu dilay heystan waa labo wiil baa laakiin maxay ahayto daawac labada waa daawac laakiin mid baa sii daran xalay ugu dambeysay waa kuwa gangsteradaas laayay xitaa waxaa maqaal nagu ah in ay soonaha area kastaba agas ma areadaba inaysan soo gali karin oo areadaas hadaa soo gudubtid waxa weeyaan in lagu dilaayo marka soonohaas hadaa ay kala leeyihiin oo degan kala leeyihiin marka waxaan jiri jirtay wadankii markii loo soo xasuustay hadda in la dhihi jiray ciyaalka xaafadda ciyaal holwadaaga noo yimid oo kale inaan ciyaal xaafadda hena noo yimid qof ciyaal xaafadda waa la kala lahaa xaafadaha loo kala lahaa tiyo kale marka anaga teena waxay ahayd ciyaalka xaafadaas noo yimid laakiin tan waxay noqotay in naf lagu waayo waa kas xalay waxa la dilay hadda xalay waa dhaawac waa tahay ka soco Ridwaan horta arrintan gaanku waa arrin soo badanayso aad waliba u socotaa waa arrin beryahan dambe xadka iyo xadhkaha goosatay oo la wada og yahay oon tira koob lahayn anigu imika 8 baan garanaya ilaa samarka 8 ilmood oo dhintay baan garanaya 8 baa la dilay yaan garanaya anigu Soomaaliya Camden xaafadda Camden oo badnaa Hayes North Hall Greenford South Hall 8 baan garanaya oo London ka tirsan kulli xaafadaha London bay ka tirsan Acton 5 bilood gudahood ilaa samarkii 6 bilood baa ka soo wareegtay horta gaanku aad buu soo badanaya gaankani waxa weeyaan waa group is urursaday oo abuurta dhalinyaro iyo dad oo area code post code war baa la yiraahdaa waaba area xidhanayaan areada xidhanayaanna intaasaa joogta qof cusub laguma arki karo Soomaaliya hatta ha marka gaankan waa laba nooc mid dagaal iskuul iyo wax ka kaca iyo dhalinyaro israadsata midna waa qolo kale oo business ku soo duusho daraaga baqtiga iyo waxyaabahaas bar marka qoladan businesska ku jirtay hawshoodu way fara badan tahay maalin kale in kaliya in iska la saarayo tahay marka qoladan gaanka runtii way hawlo fara badan tahay in badanna caruur badani way ku nafwaayeen hadda laga gaarin kuba nafwaaye caruurtuna dadku waxay u malaynayaan qofka la dilay ama qofka group ku jira inuu bahasha
uun ku jiro laakiin siyaabo fara badan ayay caruurtii u galeen gaanka iminkana waxay noqdeenba iska soo horjeed waa tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaarin daawadayaal haddana wixii maxaa xal ah marka ugu dambeysii maxaad kula tali lahayd waalidiinta soomaaliyeed aniga aan ku jiro adiga aad ku jirto adiga xataa isla talinaya ruwaan ay ku jirto kusoo dhawow daqiiqadaan leenahay saacadda waa naga dhamaatay horta waxaan kula talin lahaa waalidka soomaaliyeed meel kasta uu joogo oo qurba joogta ah waxaan kula talin lahaa cunugaaga markaa aragtay iskuulis uu ka yimid oo dharkii iskuulka wadan oo tracksuit wata oo ka yimaada iskuulkii horta waa inaad dareentaa inay wax jiraan cunugaagoo lacag dheeraada lacagta aad siisay ma aha lacag badan aad ku aragto waa inaad feejignaataa يعني waa waxyaabaha qaarkood oo lagu arkay ilmaha oo waarid hadaa tahay inaad feejignaata ay tahay cunuga aad adigu dhashay haduu 15 jir yahay ama haduu 12 jir yahay aad aragto ilma ka waaweyn uu saaxiib la yahay hadaa weydiisid ilmahaas aad tiraahdo hooyo ilmahan maxaa ula socotaa difaaca taasna waxa weeyaan iyadana waa qodob kale oo iyadana feejignaan gooni ah waa inaad siiso ilmaha hadaa aragtiin uusan soo noqonaynin oo uusan guriga ku soo noqonaynin oo xilli dambe uu imaanayo oo iskuulka waqti laga yimi uusan cunugaaga guriga ka weysid waqti baa jira ilmahii waxa dhici karta baski inuu kusoo daaho laakiin uu kasoo baski wax dhacaan ama uu soo daaho laakiin ilmaha hadaa aragtid waxyaabaha aan hadda soo sheegay oo kale ina feejignaatid ka gaar oo wadankii u celi ridwaan maxamed samal gabagabadii bismillaah daqiiqa waxaan oran lahaa horta ilaahay garashada inoo hagaajiyo quwana hayna siiyo dadku inay soo baxaan inuu guriyaha ku jirin oo shirar samaysano arrintan inay deynaysa maaha caruurteena yar even caloosh ku jirtay babyga bushjeerka ku jiray gaadhaysaa waynu fara badannahay runtii hoolalna waynu haysanaa kuwii dawladdu inaysan kartay kuwaynu iskaynu kalaysan karro waynu awoodnaa marka dadku intaynu soo baxno inaynu shiro oynu arrintan laga hadlo oo face to face rag iyo dumar arrintan si ballaaran looga hadlo talabadeedina waanu qaadaynaa sida ugu dhaqsiyan badan insha Allah jazakallahu khayr kuwaasi waxay ahayn daawadayaal ridwaan maxamed sambal iyo Leila Cabdi caawa halkan igala qayb qaatay falanqaynta ka hadalka iyo tusaaleynta iyo fikradsiinta annagaba aan ku jirno waalidiinta Soomaaliya meel kasta joogaan sida loo xakameyn lahaa dhibaatada generationada soo kacaya jiilka soo kacaya wax lagu qaban lahaa igala qayb qaatay aad bay u maasii labadooda farsamada waxa iska leeyahay soo garabay tan inta ku mid doon barnaamijka kala mid kaaba wanaagsanbo sida iyo nabadgelyo